maamulka iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe Cumar Toore ee magaalada Berbera ayaa xalfada abaalmarin u qabtay ardaydii ugu sareysay imtixaankii yaraa ee dhawaan laga qaaday ardaydaasi. Munaasabad ballaaran oo loo qabtay ardaydani ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee Berbera, gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil, waalidiin, mudan iyo marti sharaf kala duwan. Waxaana ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay maamulaha dugsigaasi Caydulus Cali Xasan, waxaanu ka warramay xalfadani abaalmarinta ay u qabteen ardaydani. run ahaantii waxaanu xafladan ama munaasabadan u qabannay inaannu ku abaalmarino ardayda markaa kaalmaha hore ka gashay imtixaankii teeramka yar. sababahaanu imminka teeramka yar ugu abaalmarinayna waxa weeyaan xaaladda cimilada waddanka oo kulul sidaa laajigeed ayaannu imminka ugu soo beegnay. waxaannu doonaynay xafladda inaannu ardayda ku abaalmarino. sanadkii horena waxbaa noo qabsoomay oo wax wanaagsan baa noo qabsoomay oo ah iyadoo keejiigii uu noo furmay. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xildhibaan Cabdirashiid Nuur Wacays oo ka tirsan golaha deegaanka ee Berbera, gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil Maxamuud Xasan Caynaashe iyo marti sharaf kale. waxaanay u hambaleeyeen ardaydani maanta la abaalmariyey. waxaa laga dhawaajiyey in magaranaysaa iskuulku maalinta ka dambaysa inuu wax u kordhaan waa munaasib. inay meel taagnaato la dooni maayo. waxaa la sheegay in magaranaysaa uu qol u baahan yahay, qolkaasina kombiyuutar la keeno ardaydii tayadoodii waxbarasho kor loo sii qaado. ka gudi ahaan insha allahu tacaala sidiianu tii horeba magaranaysaa ugu hagar baxnay ee magaranaysaa ugu dadaalay waan ugu dadaali doonaa hadduu ilaahay ka dhigo insha allahu tacaala ka qaybgalkaas. iskuulkani maaha iskuul la dhayalsan karo, waa iskuul taariikhda gobolka Saaxil kaga jira baaldahaba. ilaahayna waxaan uga baryayaa macallimiinta iyo maamulka isku hufan ee iskuulka isku wada jirka uga shaqaynaya in maalinka qiyaamo ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro. waxaa kaloo aan ardayda ugu ducaynayaa ardayda halkaa maxay ahayd maanta lagu abaalmarinayo inay noqdaan kuwa dalkooda iyo dadkooda anfaca. runtii sharaf bay tahay inaan maanta idinkala soo qayb galo munaasabadda tan qiimaha badan ee lagu dhiirigelinayo ubaxa ee lagu dhiirigelinayo ardayda. runtii degmo ahaan haddaannu nahay maamulkii degmada waxbarashada waannu garab istaagnaa, gacan baannu ka siinaa waxbarashada iyo guddoonka waxbarashada oo fadhiya. dawladda hoose ee degmada Berberena waxbay tartaa, laakiinse intaasi maaha wax ku filan oo waxbarashada kafaynaysa. waxaynu u baahan nahay waxbarashada inaynu siino gacan intaa ka weyn oo garab istaagno, maadaama oo ay tacliintu tahay waxyaabaha qofka bini'aadamka ah qiimihiisa kor u qaada ee meel sare gaadhsiisa. runtii waa xaflad aad u qiimo badan. waa munaasabadaha aan ka qayb gallo munaasabadaha ugu qiimaha badan. farxad baanay noo tahay inaannu arday la dhiirigelinayo horumar waxbarasho oo dugsi ka soconaya inaan ka qayb galno. waajib baanay nagu tahay inaannu qayb ka qaadanno dhiirigelinta iyo hawshaa soconaysa. waxaan markaa uga mahad celinayaa maamulka dugsiga iyo macallimiinta isku duuban ee dugsigan gacanta inoogu haya. aad iyo aad baan ugaga mahad celinayaa dadaalka ay geliyeen ee ka muuqda ubadkii iyo hawshii aynu u diray. aad baan uga mahad celinayaa. waxaan kaloo u mahad celinayaa waalidka isaguna ubadka ku tabcay ee Berber taagan ee diyaariya ee mar kasta u hagar baxa. waxaa gebagabadii halkaasi abaalmarino lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaankii laga qaaday. Cabdirasaaq Qaasin, telefishinka Saab, magaalada Berbera.